jahannamo maxay tahay sideedaba rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi xadiis uu warinayo abaa hurayra oo runtii saxiixaynka ku sugan ayaa wuxuu dhahayaa naarukum horta hore intaan xadiiska sheegin waxaan filayaa in aad aragteen dadka ku nool dhulalka gubanaya dadka ku nool ma aragtay duurarka gubanaya waad aragteen kulaylka markuu gubanayo inta nooc ee kulaylku yahay holaca iyo kulaylka iyo qiiqa madow yaa waad aragteen marka beeraha ceelasha shidaalka ay gubanayaan waad aragteen bal ka soke guryaha markay gubanayaan waxa lahiib ah ee ma aragtay qiiqa ee holaca ee ma aragtay waad aragteen aan lagu jiri karin oo qofka uu u dhimanayo macnaha suffocation cunaha uu xirmaayo ama uu gubanayaba oo uu gubanayo uu gamaarayo waad aragteen qof walaalayaal ku dhaca malaha marka ay kayn gubanayso ama shidaal gubanaya ama guri uu gubanayo yacni qof u dhowaan kara haba yaraatee malaha sida looga cararayo waad aragteen iyo sida ay wax u burburinayso waad aragteen taas waa tii adduunyada waaye oo qof walba haddii cabir la yiraahdo dabka kuugu weynay aad aragtay haddii youtube-ka aad gashaan waad aragteen yaa dabka siduu xawliga qof walba uu ka aacudu bilaysanayo oo xataa aan la eegi karin waa kii adduunka kaa ina keena marka ina keena idaylkeen aynu u tagna caawa xabiibkeenna ku salli xabiibkaage sala allahu calayhi wasalam ha inoo sheego isaga afkiisa ha inooga sheego sala allahu calayhi wasalam naarta adduunkan middan yare adduunka ah iyo taa aakhiro bal haysu kaaya barbar dhigee ina keena waa masjidkii حبيبك صلى الله عليه وسلم مدينة المنورة إلهي شرف كذا هسي زيادية وحولي ضد يهو وحول الله لي سحابة معها دقيستا رسولك عاوة وحول الله لي والله إنان سحابة أهين والله يا إنان سحابة أهين بل وحول الله لي قبل هذا يويل كاغا هو يدا آباه إذنكو إذن لهدلايا أنا أقول الرئيا إذنك أيو والله ستوصى لهدلايا كسل لي حبيبكين صلى الله عليه وسلم وكأضحي ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم نار تينا آتشيدتان بل مدن قبنيسة دوركي قبيسة مدن عالشي قبيسة قريه قبيسة هاوتك قبيسة مدن ايضا ادوان كرين دولكي عيارا او دنديرتي وقيب هل قيب او كمد تضواتا قيبود جهنم والعياذ بالله ميلا فهميسا هورت معناهاس تضواتا قيبود oo meel taal oo tan oo kala ah ayaa hal qayb laga soo qaaday oo waliba aad loo qaboojiyay ayaa la inoo keenay soo ma garan tiiba maanta adduunkii baaba hadii lagu fasaxo wallahi adduunka oo dhan bay wax walbo aan dhisanay iyo wax walbo yaalay eber ka dhigaysa naarukum cadaabki dabkiinan waa qayb kamid ah 7 qaybood oo jahannama ah maxaa haray marka maxaa haray dadkii waxay yiraahdeen saxaabadii markaa la fadhiday wallahi tan aan ugu filan tan ayaa dadka cusaada iyo dadka gaalada madaxa adag mujrimiinta faajiriinta middan ayaa lagu gubi tan ayaa ku filan tan laakiin kuma filna middan kuma fillo ilaahay dib u dhiganaya cadaabka dib u dhiganaya cadaabku wuxuu rabaa inuu dad madax adag uu kaga aarsado doonaya wal ciyaadu billah ilaahay hay naga ilaaliyo بل وحوليه فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها يا إله إلا الله بل أجي إله بدك دارين وحي لا ديرتهي دبك أدونك يعني مدى جهنم وحي أدونك لا ديرتهي لحدن إسقال قيبود أو مدول بو لحدن إسقال كمده مدن أدونك أي لمتها يداني ككولو لاين بمعنى وامحي دب كان أداركتاني كوليل كبضن أو تضبات تنجير للاب لابي ويان والله أتكيسان كرا
ka warrama ilaahan kuu dhaashay haddii foornada yare ee dhowrka xabee dhuxushii xaabada yar ee muufada dee aan ku shidane xaabada la geliyo haddii inta lagu qabto lagu dhex geliyo lagugu daboolo bal ka waran inteed ku jiri kartaa adiga waxaa la rabaa inaad takhayul samee yani iska yeel kaanama adoo foorno dhex galay ma ku jiri kartaa ma lagu arkayaa ka waran ilaah baan kuu dhaarshiye dabka oo 70 jeer la laablaabay ma wax yarbaa abadan wallahi in aanu yarayn ya saxiixaynka haddana waa muttafaqun calayhi xadiiska ogow waxa inoo sifeynayana waa xabiibkii sala allahu calayhi wasalam ilaahay doortay weeyaan caawa waxaynu hadda marka raalli ahada qolka wax yar aad looma maqlo waayahay marka walaalayaal xadiis kale oo uu werinayo Abu Hurayra waa isla saxiixaynka haddaad maqashaan dee waa Bukhaari iyo Muslim weeyaan walaalayaal ayaa dabkii sidaa ahaa sida aadka ahaa runtii ilaahay dee u shiday oo kumanaan sano la shidayey oo ay madoobaa oo ay caddaatay oo ay guduudatay oo ay caddaatay oo ay madoobaatay oo la daboolay waxa lagu shidayaana bini aadan iyo maaragta uu yahay dhagax uu yahay ayaa waa 70 qaybood dabki waxa waaye dee waxbuu dareemayaa jamaadaadka xataa siday wax u dareemayaan way dacwootay kulaylkii wayna daboolan tahay kulaylkii ayay hayn weyday way dacwootay yay u dacwoonaysaa khaaliqeedii bay u dacwoonaysaa cadaabkii loogu talagalay in wax lagu cadaaba dacwoonayo waa cadaab aan waxba dareemaynin ayaa maanta wax dareemay kulaylka heerku gaaray eeg ilaahay bay u dacwoonaysaa jahannamaa dacwoonaysa macnaha oo maxay leedahay eeg rasuulka inoo sheekayna sala allahu calayhi wasalam oo dhahaya ishtakat innaaru ilaa rabbiha waxay u dacwootay naartii ayaa dacwootay yay u dacwoonaysaa rabbigeeday u dacwoonaysaa oo maxay leedahay yaa rab akala bacdii bacdaa barkay ayaa barka kala cunay waan gubtay eeg waxay gubaysa ma aha iyadii baa waxay leedahay kulaylka intuu ka batay waan gubtay oo waan gamaaray bal iyadii hadday gubanayso wixii la dhex geliyey maxaa u malaysaa ya mar walba oo aad taabatid mar walba oo aad macsi u dhaqaaqdo ibliis uu kugu qalqaaliyo xusuuso yaa rab akala bacdii bacdaa barkaybaa barka kale cunaaya xusuuso markaasaa muxuu sameeyey ilaahay dabkii xataa wuu u naxariisanayaa waa makhluuq dabkan waa makhluuq wuu u naxariisanayaa waa ka uu dhahayo waa ka uu leeyahay faadina lahaa binafasayni laba nafas ayaa loo ogolaaday 2 jeer in ay neefsato ayaa loo ogolaaday naxariista ilaahay fiiri xataa naartiba ilaahay u naxariisanaya allah 2 jeer inay neefsato nafasin fi shitaa wa nafasin fi sayf kulaalaha iyo qaboobaha kulaalaha eeg 6 bilood in ay neefsato hal mar qaboobaha oo 6 bilood ahna in ay neefsato hal jeer waa mar iyo mar in ay neefsato oo hal mar ay neefta ay ka soo boodo marka xoogaha ay yara qaboobi mayse laakiin kuleelkii hal mar uu soo baxo qiiqi inuu hal mar soo baxo rasuulka markuu wuxuu leeyahay salawaatu llaahi wasalaamu calayh war kuleelkaas intuu aadayaa marka ay waqtiga kulaalaha naarta ay neefsato iyadii way neefsatay laakiin kuleelkeeda intuu soo aadayaa qaboobaha markay neefsato qabowgeedii intuu soo aadayaa ogow qabowga lafsadiisa waa cadaab kuleelku waa cadaab sida kuleelka wax loogu cadaaba ayuu qabowga ilaahay wax ugu cadaabaa waxaana la yiraahdaa zamhariira tanna jahannamaa la yiraahdaa waa ka u dhahayo sala allahu calayhi wasalam fahuwa ashaddu maa tajiduuna min alxar wa ashaddu maa tajiduuna min azamhariir neeftan ay neefsanaysa jahannama waa
labada jeer mid wuxuu leeyahay waa ta ugu kulul ee aad heshaan kulaalaha, midna waa tan ugu qabow, waa marka ay ugu qabowdahay waqtiga qaboobaha ah. eeg waxa baddan aad aragtaan ee aan fuulay, bad ku taalla Finland, waxay ahayd Helsinki oo lay tusay meelihii doonyaha ay lagu xirxirayay. ayaa la yiri meesha aad ku taagantahay sheekh waa bad bay ahayd, oo badii miyaa la aasay? maya ee barf bay noqotay. markaana waan qarqarayaa ogow, doonyihii meelihii lagu xiriyna waata, waxaan taagnahayna waa bartamihii baddan taagnahay, meelihii ay maraakiibta mari jireen waqtiga kulaalaha ayaan dhex taagnahay. laakiin maanta waa jaliid, waa dhagax weeyaan. war badda aad aragtaan ee biyaha ah, haddii inta awood aan leenahay aan isku darno, yaa ilaah baan ku dhaariyey, ma qaboojin karnaa oo barf ma ka dhigi karnaa? waa maya, kama dhigi karna. laakiin ilaahay fiiri, hal mar oo ay soo neefsatay jahannama, ay soo neefsatay qabowgii intuu ka batay ay neefsatay, ayaa wixii biyo ahaa ee dhulka korkiisa ah oo dhan baa dhagax noqday, dhagax u noqday. yaa ayib, oo waa kuwaana aan la qarqareen, geedihii waxaa lagu daday baraf, guryihii baraf, meel walba baraf. waa kuwaana dadkiinan dibadaha ku noolow, maanta caawa aad jaakadaha wada sidataan kulligiin. waa ka aad kabaha iyo buudadka sidii askartii aad haddana diyaar ay idiin tahay, oo aad rabtaan beri inaad kabihii buudka ahaa iyo 10 jaakadood iyo kii qoorta lagu xirayay, wixii madax lagu duduubayay, wixii gacmaha la gashanayay, wixii oo dhan waa kasaa, waa idiin diyaar. yaa waa maxay waxaasoo dhan ka samaysateen? waa neef yar oo ay neefsatay jahannamo weeyaan. waa neef, ma aha dabkeedii oo dhan ma soo saarin oo hal xaba ah, maya. 70 qaybood qayb yar, hal qayb xataa ma aha. waa neef yar oo ay neefsatay ayaad intaasoo dadaal aad ka samaynaysaan, oo guryihiinii aad koronto ka wada dhigateen, baabuurtii hiitar aad wada gashateen kulligiin, oo hadda xataa qaarkiin macnaha rumatii aysan dhaqaaqi karin, gaarigii bannaanka la dhigaa uu dadmaaya markiiba. waa neeftii yarayd. ilaahay baan ku dhaariyey, ka fikira haddaydan cadaab arkin oo qaybihiisa kala duwan, qabowgiisa kuleelkiisa aydan arkin, waxaad aragteen waa neefteedii. war neefteedii adduunkii hadday bedeshay oo aad aragtaan, maxaad u malaysaa iyadiyo rasmi haddii lidin geeya? war arrinku wallaahi ma yara. wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allaahi cadiim. wax yar baad u malaysaan oo fudud, laakiin wallaahi arrinku waa weyn yahay. maanta ikhtiyaar intaan leenahay, cadaabkaas ilmaha ha looga sheekeeyo, ma aha inaan idin cabsiinaya, laakiin xaqiiqo jirta oo qur-aanka in badan uu ka hadlay, sunnadu ay ka hadashay, oo laynoo soo gudbiyey oo wada saxiixa ayaan rabaa inaan ogaano. waa xaqiiqa aynu u tegi doono. in badanoo walaalaheenna waxay tageen xaqiiqada iyagoonan aqoonin bay wallaahi tageen. yaa hadday calaacalayaan oo ay leeyihiin, allah hadduu hebel noo sheegi lahaa, aabbahay muxuu iigu sheegi waaye, sheekhay muxuu iigu sheegi waaye, maxaana loogu dhiirigelin waaye? war jannadan waa la gelayaa, ilaahay haynoo kasee. janno ma aha inaan ku hormarino. yaa waxa waaye dadka in waxaa la yidhi khayr wax kaama dhibee, shar u toghay, sharta see looga cararaa. rasuulka dhahay salawaatullahi wasalaamu calayh, akthiruu min dikri haadimi ladaat. badiya oo isaga sheekeeya kii macmacaanada kala jaraayay. kulama aakhira dadka looga sheekeeyo, kulama adduunkooda uu soo yaraanayo. maaha inaan ku farabaxsana, middan waa laynooga digay. marka saasay u weyn tahay. kow, waana midda ugu daran ee waqtiga kulaalaha aad helaysaan. kuleelka aad aragteen ee xataa duurkii uu ololayo, oo Canada hadda ugu dambeysay ay ololaysay, oo Israa'iil ay olashay, oo Australia geedaheeda ololayaan. waxaan ololkaan aad aragteen ee aan la demin karin, adduunkii oo dhan uu isugu tagaayo, xaggee waa maxay? ma isweydiinay? waa kan aayaad saxiix ah, waxyi saxiix ah ayaa ilaahay iyo rasuulkiisu ay noo sheegayaan. waa min fayxi jahannam. yaa waa kuleelkii jahannamo waay. waa neefteedii loo ogolaaday, daboolka in yar inta loo baneeyey ayaa neef yar ka soo baxday si ay u qabowdo. markaasaa adduunku waa kuleelka ugu daran ee aad kuleelaha helaysaan, ee adduunkii oo dhan gubaya. yaa kaa waa fayxi jahannam waay. waa samuumkeedii waay, waa samuumkeedii. xadiis kale oo uu Tirmidi warinayo, eeg waa ka uu dhahayo,
فأما نفسها في الشتاء فزمهرير وأما نفسها في الصيف فسموم. neefta ay neefsanayso waqtiga qaboobaha ah waa zamhariir ayaa la yidhaahdaa. waa qabowkan ugu daran waaye, qabowkan ugu daran zamhariiruu ka imaanaya. waa qayb ka mid ah cadaabka ilaahay wuu kulmiyey. eeg, waqtiga qaboobaha ahna kaasaa laisku cadaabaa, waqtiga kulaalahana jahannam. ama culimmadu siday leeyihiin qabowgii iyo kulaalkii labaduba ilaahay waa awoodaayey, hal meel buu isugu geeyey. ma garan, hal meel ayaa la isugu geeyey. ama dad qaarkii kanaa lagu cadaabaya, dadka qaarkiina kanaa lagu cadaabaya. intuba ilaahay, laakiin waa shay xaqiiqo ah in samuum iyo zamhariir labaduba aakhir ay jiraan. wa amaa nafasuhaa fi sayf fasamuum. laakiin sayfka neefta ay neefsanayso waqtiga kulaalaha jahannama waxa ay soo neefsanaysaa waa samuum, waa kulaylkeedii weeyaan. qabowgeediina waqtiga qaboobahay soo neefsataa, kulaalkana waqtiga kulaalahay ayay soo neefsanaysaa. ilaahay haynaga koriyo.